فرحت وين النوتاي ما أنت إن سود وين ولا شيء نقدر طبعا ما يرد من البلد وين الجول كبيرة هذه أنا فرح سنة هاي تاس معناه الحكي اللي أنت the only mayor أو ودك الصومالي تجر أو هوان إن النظر taas waa mid weyn sida garaadid saasan u soo dhaweynay nada soo dhawo jaaliyada dadkaada oo xiiso badan ku soo dhawo jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London ee wadanka Great Britain ayaa maanta garoonka diyaaradaha Heathrow Airport ku soo dhaweeyay maayarka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Nadar Tabax Maalin Garaada maayarada ayaa lagu wadaa inta ay ku sugan tahay magaalada London ee wadankan Great Britain inay kulama gooniha ay la qaadato jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool wadankani jaaliyada ayaa dhanka kale waxay hoosta ka xariiqeen inay tahay farxad aad weyn in magaalada London ay ku soo dhaweeyaan haweeneydii ugu horeysay oo maayar ah ee ka socota dalka Soomaaliya maayarka magaalada Beledweyne Nadar Tabax Maalin waxaan ka mid ahay jaaliyada Birmingham waxaan u imaaday safar وماير كيجي إن شاء الله خير وأنا سودوين دونا سودوين إنتانية كبدن بإلهي رادو علينا سودو maashiyaha maayarada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Nadar Tabax Maalin Garaada ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli la filayo in wadankan Great Britain guud ahaanba ay ka dhici doonaan doorashooyinka la filayo inay qabsoomaan magaalada London oo aad u baleysad markii dolaar sare laga arko qaabtahay magaalada Beledweyne waxaan rajaynayaa in aad sadeeqan digaada maayarka aad inaad kala xaajooddo waxyaabaha labada magaalo ku jeerno salaam waa maanta ina soo dhaweeyno maama Nadar Tabax Maalin oo soo dhaweeyno London maayarada magaalada Beledweyne welcome mama maayaradeena walaasheena madaxdeena sharafta leh Nadar Tabax Maalin Garaad ala boorka tilmaamo foorka taaganahay dhalinyaro badan oo meesha joogto gabdho badan oo runtii meesha joogo meel dheer iska yimid gobolada ka imaaday sida macluusheeda Birmingham Manchester iyo dhammaan gobolada ka imaaday marka walaasheena Nadar meesha joogto in soo dhaweeyno walaal soo dhawo waa leenahay sharafta barkada haato dadku jecel meesha joogo jaaliyaddan oo u jeeda sida muddo iyo miisaan ay ku soo dhaweysay soo dhawo maanta aan halkan ku soo dhaweyno maayarka magaalada Beledweyne maayar Nadar Tabax Maalin sharaf ayay noo tahay in maayarku inala joogto ay nala joogi doonto maalmaha soo socda waxaan rajaynayaa in jaaliyadda iyo jaaliyadaha kale oo Soomaaliyeedba inay maaragtay ay kulan loo qaban doono maayarka ay kasoo wargeli doonaan ummadda iyo gobolada maaragtay meelaha oo ay u soo namaatay insha Allah ilaahay yaraado aad waxaan weyn inootahay maanta inaan soo dhaweyno walaasheena Nadar Tabax Maalin maayarada Beledweyne ee gobolka Hiiraan marka aad aan u faraxsanahay taas macnaheedu waxay ka dhigan tahay the only mayor oo wadanka Soomaaliya ka jira oo haween inay nadar tahay marka taasna waa mid weyn sida garaadid saasan u soo dhaweynay nadar soo dhawo jaaliyada dadkaada oo xiiso badan ku soo dhawo maanta ay joogto wadankayga ay joogto wallahi nadar dawlad waxaan daaim ku warsaday waxa doonaysa allow daha kaaga qaad darajadii nabi Suleymaanna lagu daa samarkii nabi ayuuna nadar jeebadaha ku xiro mas'uuliyadayda sharaftayda marwadayda Allah ku dajiyo dugsi aan dabaylahay waa maalin farxad badan waa maalin ilaahay ugu mahadcelinayna fursadaan oo nasiiyay maayaradeena gobolka Hiiraan oo loogu timid wafdi oo booqatay wadanka Ingiriiska ayadoo soo martay meelo badan oo yurub ka mid ah kabacdina anaka lagu soo goosatay shaqo u timid duuli aan leenahay soo dhawo maayaradeena soo dhawo welcome to London intaani in ka badan aad sii sugaysay Nadar soo dhawo anigoo ah gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee UK kuna hadlaya jaaliyada Soomaaliyeed caawa qaybaha kala duwan halkan taagan iyo dhammaan jaaliyada magaceeda ku hadlayo waxaan soo dhaweynaynaa
مسؤول سري أو رنتي تياكله واحتر كله طلق الصومالية رنتينا حول بدن كسر قبطي جسيدة نظر تبعك وحلينا هاي ولا شيء وحواي وهالجماعة ورنتي الدلك يدلك وساقطي قبل كهيران أو يكهاي دقة مجالد ما هنجيب الصومالية ده دم بوقت ساقطي وحن كلنا هاي أنا أقول الله مجع جليد يدمان جليد هالكالجوك وحن كلنا مسؤول سري وقت الوطن كلنا هاي باقينا جاليد الصومالية UK waxaa dhici doonto xaflad weyn oo marwada aan u samayn doono waxaan ku baaqaynaa inay ka soo maayarada in laga soo wada qayb galo maadaama ay tahay geesiyo dalka iyo dadku halgantay haddana ta hooyadii macawisley runtii aniga mar labaad anoo magaca jaaliyada ku hadlayo runtii waxa waaye Soomaaliya markan tagay waa gabadhii maayarada ahayd oo waxay dhiigay dalaalisay xibintaad ugu hayd halkan ka gudaa waa maayaradii walaashay nadar tabax maalin inay London noogu timaado oo airportka aan ku soo dhaweyno aadaan u faraxsanahay aniga baladweyne bilka hore aan ka imid nadar hawlo badan soo qabatay xadogaalaan u ahay maayarad aad u qiimo badan waaye waa soo dhaweynaynaa ku soo dhawow London ku soo dhawow Rehiran ku soo dhawow walaalaha annaga isku duuban oo ay hogaaminayso gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka UK oo hogaaminayso waxaan maanta soo dhaweynaynaa walaashayna maayaradayna madaxdayna aan aad u jecelnahay madax soo dhawow waxaan soo dhaweynaynaa terminalka Heathrow terminal 4 si mug iyo miisaan loo soo dhaweeyay jaaliyada wax qof ka maqan oo yar iyo dad yar ka maqan waad dareemi kartaa sida lagu jecel yahay dad badan oo gobollo iyo meelo dheer loo yimid walaal ma soo dhawow insha Allah xalfada iyo hawlo badan aan qaban doonaa nadar wax xumaatay hawlo shaqeyn xumaatay magaaladan insha Allah shaqadeedana Ilaahay ha fududeeyo leenahay wixii annaga oo facility ay noo baahan tahay annaga isku duuban oo jaaliyada Soomaaliyeedna insha Allah waxaan qaban doonaa maasantiin walaalaha ka soo qayb galay oo ogahay maalin shaqo inay tahay meel dheer loo wadi maalin marka insha Allah soo dhawow walaashii sharafti jiran فرحنا مالك إن هيدرو أيربورت جوجو وقال لندن يوصل لوسيكتومية الجالية هي لمان سنين كرو الجالية كسر كوسكا مريم ميلانا هذا فرحنا هاي وما سنتي ووحي معرفة شقانة كده ونقول إن شاء الله الله يبارك وما سنتي دماتي مرة بعد المسجد dadweyntani jaaliyada Soomaaliyeed ay ku soo dhaweynayeen garoonka Heathrow Airport ee magaalada London kadib ayaa maayarada loo soo galbiyay hoygii ay ka deganeed magaalada London waxaana lagu wadaa isbuucyada soo socda in jaaliyada Soomaaliyeed ay qaban doonto xaflad weyn taas oo ay ka soo qayb gali doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada sidoo kalena maayaradu ay kaga warbixin doonto magaalada ay ka timid iyo guud ahaan dalka Soomaaliya halkani waa Shafi Media Production oo ku faraxsanahay inaad la soo booqato oo aad saaxiib la noqoto barnaamijyada aan idin soo baahino kambalka furo oo subscribe-ka inoo saar annagana waxa sharaf noo ah mar walba la socodkaaga geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiis